kusoo dhow madashana Saki Ducaysane fadlan hadaadan weli subscribe saar madasha Saki Ducaysane hadda saar kambalelkana furo like-tan raaci ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay man laa yashkuru naas laa yashkurillah qof aan dadka u mahad celin ilaahay uma mahad celiyo waxaan kaaga mahad celinayaa walaalkayga qaaliga 300 aan gaarsiiseen wankayna waa ka rajaynayaa muuqaalkeena aan guda galno tuuladan waxaa ku noolaa qoys ka koobanaa 3 qof aabe xaaskiisa iyo gabadhoodii yareed aabo maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu imaaday gurigiisa xaaskiisa ayaa la oran jiray deeqa aad ayay u jeclayd gabadheedii yareed maalin maalmaha ka mid ah ayay u timid oo ku tiri sida tan hooyo caruurta dariskeena maalin dheeri dhar ayaa loo soo gadaa anna shaygan ayaa qabo ayaa igu baaray hooyo macaan dhar ii soo gad hooyadii ayaa beer jilecday oo habsiisay gabadheedii yareed oo ku tiri ayadana sida tan hooyo insha Allah hadduu ilaahay idmo waxaan kuu gadayaa markaan lacag yeesho aniga iyo aabahaba aan lacag yeelano markaas ayaan kuu gadaa iyo hadda ma awoodee gabadhii ayadoo xanaaqsan ayay ka soo baxday gurigii oo ag fadhiisatay meel u dhow maama deeqa aad ayay u murugootay oo rabtay in gabadheeda wax ku ciyaadho iyo waxay gashato u soo iibiso maalin maalmaha ka mid ah gabadhii yareed oo geed fadhida ayay waxa aragtay 2 gabdhood oo ciyaaraya gabadhan waxaa la dhahaa bilan ayaa gabadhii ku tiri gabadhii meesha maxaa u fadhiyaa maana la ciyaadin gabadhii ayaa tiri naaheede anigu qoys faqiir ayaan ka soo jeedaa waxaan ku ciyaarana ma haysto hooyaday aabaheena waxba iima gadan gabadhii ayaa tiri haddii saa tahay hadda anaa ila ciyaaraysaa raali ma ka tahay inaad ila saaxiibtid labadii gabdhood ayaa gacanta isgeliyay oo barta ku saaxiibay maalintii oo dhan waa ciyaarayeen bilan ayaan ku tiri hadda laga bilaabo waxaad tahay saaxiibteeda qaaliga ayaan oo faraxsan ayaa ku soo laabatay gurigeeda oo hooyadeed ku tiri sida tan hooyo waxaan helay saaxiib fiican oo wax kasta ku ciyaaraysiisa hooyadeed ayaa ku tiri gabadha la saaxiibto waa gabar hodana ama haddii alaabta ka jabto kuu qabsataa ayaan markay hadalka maqashay ayay tiri hooyo may gabadhaas waa gabar farxaaniyad ah oo iska faraxsan oo daacadna hooyadeed ayaa tiri haddii sidada tahayba orgo saaxiibta aad oo la soo ciyaar gabadhii oo dhar cusub qabta ayaa u imaatay gurigii ayaan ayaa sugaysay maantoo dhan oo soo dhaweynaysay ayaan ayaa gabadhii u keentay aabaheed oo ku tiri aabe gabadhan waa besti farankayga laakiin waa gabar danyara oo qoyskooda waxa u maystaan aabihii markuu hadalka maqlay aad ayuu uga carooday oo ku yiri gabadhiisii gabadhaydii nakeen wax ayaan ku soo sheegayaa gabadhii ayuu ka heestay oo ku yiri gabadhayda lama saaxiibo dadka danyarta haddii kale alaabtaada ayay ka xadayaan guriga alaabtiisana way xadayaan iska ilaali mar dambe la saaxiibin qof danyara ayaan oo dhageysanaysa hadalka ayaan niyadii ka jabtay oo soo baxday markay soo baxday ayadoo murugaysan ayay iska tagtay guriga linkiisa oo oyday ciyaal wax turtuuray ama baaruud turtuurayay ayaa waxay ku soo dhacday baaruudii meeshii ay taagneed bilan ayaan ayaa aragtay khatarta ku soo socota bilan ayada ayaa uga hortagtay oo tuudhayaan ayadana ayay baaruudda ku qaraxday oo lugaha ka soo gaaray dhaawac aad u halisa aabihii iyo hooyadii dhalay bilan ayaa yimid goobtaas ka dhacay shilka khatarta oo ku yiri naaheede bilan maxaa gabadha ku samaysay wabi dildilaacsan tahay
bilan ayaa tiri aabe baaruud anila ii waday ayay isku dhigtay gabadhan. Aabihii ayaa yidhi waa gabar qalbi fiican, laakiinse maxaa sidaas u samaysay? Inaad samayso maahane. Ayaan ayaa tiri aabo gabadhaada wax kastoo gaaro waa wax ani gaaray ee waan u dhaqnaday keli. Aabihii ayaa yidhi gabadhayda bilan hadalkan kugu iri wuxuu ahaa mid ay caro iga keentay ee iga raali ahow. Ayaan gabadhayda soo xorod wuxuu ku yidhi aabo iga raali ahow, wuxuuna u keenay alaab ay ku ciyaaro. Laakiinse asxaabe ani waxaan ku ciyaaro ma haysto ee channelka subscribe saara. Gabadhii ayaan oo faraxsan ayaa u soo gashay hooyadood iyo aabaheed oo ku tiri hooyo waxa ii soo gaday bilan aabaheed oo ii soo gaday alaab aan ku ciyaaro iyo dhar. Ayaan hooyadeed ayaa indho dhaadheer ilaan waa bale ilaahu banaha nagu soo dhisin. Waxay tiri hooyo waa maxay dhaawaca kaaga yaala lugtaada? Ayaan oo walwalsan ayaa tiri hooyo baaruud ku qarxi rabta bilan ayaan ka badbaadiyey maadaama ay saaxiibtay tahay. Isla markiiba waxaa kadis noqotay in bilan aabaheed iyo hooyadeed ay imaadaan gurigii oo odaygiina soo dhaweeyo oo yiri mudane soo dhawow. Bilan aabaheed ayaa yidhi gabadhaada ayaan waa gabar fiican oo qalbi wanaagsan, wax kasta aa rabtiin anaa siinaya hadda ka bacdi. Aaba Cabdulna wuxuu ku yidhi waxaa ka tahay shirkadeena maamule. Ayaan waxaa loo keenay alaab ay ku ciyaaro. Oday Cabdul iyo naagtiisana waxay noqdeen taajiriin. Ninkii taajirka weynaana ayaa garab siinayeen. Asxaabtu intaas ayaa kusoo gabagabay sheekadeedii maanta. Waxaan ku leeyahay aad ayaa u fiican tahay maadaama aad constant noogu joogtid every time muuqaalka soo dhigtana like saarin. Asxaabta waa idin salaamay salaan sadriga idinkaga timid channelkana subscribe saara maadaama aan gaarinano 1k subscribers.